أدبا إدي سلامة يا أصحاب تكحرن يوتيوب كيغا وانيغو كعدينا ما أنت أرين بان كهاليا رنتي ما أكتهاي ما كلتهاي إنو تشيرو قف داشا أساقو دنبيلا المير ويل إيا قواركو دونها هذا أدون كان كسو بيرا أساقو دنبيلا إنو تشيرو مكلتهاي هذا مسكح هذا كشقيسين qofka marka dambiilaha ee dunidan ku soo biira asagoo dambiila ah waa ilmaha ay dadka Soomaaliyeed u yaqaanaan wacalka ama garaca cunuga wuxuu dhashaa wuxuu dhashaa dambiila ah wuxuu dhashaa ilmaha yarka ah asagoo la neceb yahay asagoo leh magacyo lagu caayo asagoo go'aan laga gaaray inaan la siinin inaayo oo saddex magac uusan wadin magaca aabihiis baa inkiraya hooyadiis inay tuurtaa laga yaabaa bulshada wax xaquuqa kuma lahan qoyskiisa wax xaqa kuma lahan hadday tahay dhaxal hadday tahay korniisho fiican hadday tahay in magac la siiyo hadday tahay inuu markuu weynaado uu guursado ama loo guuriyo intaasba xaquuqdaasba ma lahan wax xaquuqa ma lahan waa qofka kaliya ilmaha kaliya ee dunidan imaanaya asagoo la neceb yahay aad loo neceb yahay arrintaa waxaa ka shaqeeyay oo sidaa ka dhigay waxaa weeye nimanka wadaadada loo yaqaano nimanka wadaadada loo yaqaano waxay guntiga dhiisha iskaga xireen oo dhexda u xirteen waxaa weeye ilmo yar oo dunidan ku soo biiraya inay dhahaan waa in la naco waa in la takooro waa inaan dhaxal la siin waa inaan si fiican loo korin waa inuusan magac qaadan waa in dadka loo sheego la ceebeeyo laga dhigo qof ceebeysan wacalkiyow in loogu yeero moogtahay waa arrin argagax ah waa arrin foolxumo ah bal ilmaha yarka ee saqiirka ee dhashay muxuu ilmo yar baa dembi galaa laba qof oo waaweyn oo nin iyo naaga baa galmo sameeyey ilmaha yarka waxaa loo cinqaabayaa keliya waxaa weeye waalidkii galmada markay sameynayeen dadka umay sheegin yacni sharciga iyo xeerka la maro oo bulshadu ay dhigatay oo ah inuu guur dhaco ka hor looma sheegin dadka marka waa inaa ilmaha yarkaa la cinqaabaa arrintaas dadka way la qaateen wadaadada waxba liskama weydiinin war ilmaha yarkaa ee cadaalad darrada lagu sameynayo ee la takoori doono ee balaanbali doona ee aan magaca lahayn aan dhaxalka la siinin muxuu yahay ilmaha yarkaa waxaa la gaarsiiyey heer la yiri walaalaha hadduu xitaa hooyadu koriso aabbuhu hadduu inkiro oo hooyada ilmaha yarkaa ay koriso in ilmaha yarkaa uu ka xijaabanaya walaalihiis baa ka xijaabanaya walaalihiis baa waxay u arkayaan qof ajnabi ah haddii isku hooyaa dhashay odaygii inuu inkiray keliya logama harin waxaa la yidhi ilmihiina waa inay takooraan oo ka dhigaan qof hadduu wiil yahay qof laga xijaabto hadday gabar tahayna waxay dhahayaan wadaadada ninkii aabbaha oo dhalay baa mar labaad guursan karaba ilmihii raaba u galmoon karaaba wuxuu la sameyn karaa galmo wax yaqsi ah oo laga naxabay bay ku hadlaan runtii marka ilmaha noocaasa Soomaaliya way ku badan yihiin way joogaan ma aha inaysan joogin waxaa arkaysaa iyagoo meediyaha soo gala ayaa dhexdaasa xalay waxaan daawanayay gabar raadinaysay muddo waalidkeed aabaheed oo bulshada kala kulantay in la furay ninkii guursaday inuu faquuqay in loogu yeeray wacasha iyo waxyaabo la mid ah marka garaciyo garacdiye waxaasay ugu yeeraan so dadka way jiraan dadka waxay u baahan yihiin horta nimankan wadaadada ah waxaan ay daliilsanayaan anuu ma garanayo meesha kasoo xigtaan iyo meesha ka keenaan laakiin caqliga uu ilaahayna siiyey ma aha wax maanka gelaya
qof maanta soo dhashay inuuna dembi lahayn waa ognahay ilmo yaroo maanta dhashay dembi male in la takoorana ma mudna ilmo walbana wuxuu mudan yahay labadii waarid oo dhalay in ay magac siiyaan way waaridku waa la yaqaanaa aabaha waa la yaqaanaa aabaha markuu waxaan sameynayay galmadan waxay ahayd raali buu ka ahaa labadan qof haddii la cinqaabayo waa wax gooni ah laakiin waxaa la yaab leh ilmaha la takooriyo soo ilmuhu wuxuu u baahan yahay magac in la siiyo inuu si dadka u noolaadaan inuu u noolaado ma ahan in dadka sidii u nool yihiin si ka duwan inuu u noolaado ma aha ilmaha yarka ah so waa arrin cajiib ah waa arrin naxdin ah waa arrin argagaxa waddankeena waxa ka jira waxaan rajaynayaa inay haddii ay dowlad iyo system iyo wuxuun dadku leeyihiin in sharci laga soo saaro xeer in laga soo saaro maxaa la dhahaa xeer in laga soo saaro dadka maaragtay lagu caawinayo oo waxaan nacaybkan faafay iyo takoorkan faafay iyo ilmahan yaroo laga dhigayo markuu adduunku soo biirayaba inuu yahay qof dembi dusha ku siita nacaybka loo hayo in meesha laga saaro aad iyo aad bay qurux badnaan lahayd runtii haddii aan taa la sameynin waxay noqonaysaa bulshada qayb ka mid ah inay dhibano u ahaato dhaqan fool xun dhaqankaas wuxuu u baahan yahay in meesha laga saaro dhaqankaa wuxuu u baahan yahay in laga dhigo dhaqan aad u liita oo dadka qayb takooraya ayuu u baahnaan lahaa runtii dadka caqliga inay isku yimaadaan saan ognahay qof kastoo dhasho maanta dunida wuxuu u baahan yahay laba magac sa hore usoo sheegay waad dhoofaysaa dhakhtar baad la kulmaysaa ama diyaarad baad raacaysa baasboor baad rabtaa inaad samaysid waa inaa magac wadatid ilmaha yarkaa markay dhashaan waxay aad u jeclaadaan inay waaridkooda helaan inay aabihii adduunkan keenay inuu helo inuu hooyadiis inuu helo wuxuu noqdaa qof meehanaaba qof marba meel taga qof marba qabiil sheegta qof dadka ka dhuunta qof aan lahayn cod qof aan la kaftamin bulshada qof aan haysan dad jecel hadduu geeriyoodo wax ooyaya male hadduu nool yahay xanuunsado qofka ama ilmaha yarka wax u raxmadaya oo ku hareereysan oo naxariis siinaya oo u gargaaraya ma jiro haddii ay dad kale ay dhibayaan qof ka qabanaya oo dhahaya war qofkan yaa la dilin ilmaha yarka ayaa la dilin hadduu weynaado ma lahan alla maxaa dhibaato haysata alla ilmaha yarka maxaa dhibaato haysata alla wixii ka shaqeeya arrintaan oo ilaahay adduunka ciriiri idinku geli aakhirna ilaahay cadaabtiina horgee alla maxay ka shaqeeyaan foolxumo subxaan allah maxay dhibaato ka shaqeeyaan ruux cadowsanaa dadka waxaan alifay cadowsanaa oo shar badanaa oo dhibaato badanaa qofkaas hadduu isdhaho guurso markuu weynaado siduu ku kora baa ku koree hay iyo dhibaato iyo derbijiif haddana waxaa u yaalla hadday naag tahay yaa ku dhalay baa u taalla hadduu nin yahay xaggee kasoo jeedaa baa u taalla marka bulshadu waxay u baahan tahay arrinkan inay si gooni ah oo gaar ah oo indho raxmad leh ay ku fiiriso wadamada kale maaha inaysan ka jirin ilmaha noocaasa haddii qofku waalidku hadduu ilmaha tuuro oo ay laba qof oo dhallinyara isu galmoodaan meelo wuxuu geeyaa maxaa la dhahaa ilmaha loogu talagalay marka waxaa laga qoraa magaciisii aabahii ilmahan dhalay hadday hooyadu garanayso hooyada magaceedii waana la koriyaa markuu weynaadana wuxuu raadsadaa qofkii uu kasoo jeeday qofkii dhalay qofkii adduunkan keenay saan ognahay qof kasta qofka dhalay wuu jecel yahay inuu arko marka haddii aad garanaysid qof dhibaatadaa lagu sameeyey ama haddaa adiga tahay oo aad dhegaysanaysid runtii oo aad weynaatay waxaan ku weydiinayaa weligaa ma ku fakartay inaad ka aarsatid dadka kugu sameeyey dembigan wadaadadii ka shaqeeyey inaadoo adduunka imaan lagu naco ee lagu takooro ee aan dhaxal lagu siin ee aan lagu guurin ee aan lagu guursan
walaal aada yeelan gebigaagaba laga dhigo qof oo alla cajaa'ib badana weligaa ma ku fakartay dadka inaad ka aarsatid weligaa ma ku fakartay haddaa ay dhegaysanayso qof noocaas tahay weligaa ma ku fakar dadka inaad ka aarsatid baa ku weydiinaya runtii ilaan bulshada dembi bay kaa gashay dembigaana iskamuu imaane niman wadaada ah baa meel kasta la taagan meel kasta markaa weligaa ma ku fakartay inaad dhahdo war maxaad ii takoortay maxaan galabsaday maxaad u rabtaa in aanan magac yeelan oo aabahay uusa sheegan oo aanan dhaxal helin weligaa ma weydiisay haddaad hore u weydiin ma laga yaabaa inaad weydiisid waan jeclaan lahaa inaan runtii inaan arki lahaa qof dhiiran ma qofkaasaa dhiiranaan kara qof miskiin oo bulshada dhanba ay weligiis yaaliista koorayso dhibaateynayso wixii dhala aan garanayn alla xanuun badana waxaa jirtay gaariye gabay uu lahaayo oo hadda aan xasuusanoo uu ka dhigay hooyo maxaa la dhahaa ilmo aabal-aana dhalaysa markaa wiilkiibay markaa wiilkiibay la hadlaysaa ilmo wiil ah bay la hadlaysaa qofkii xasuusta way fiicnaan lahayd inaad buuggaa dib u akhrisaan buugga la dhaho hagarlaawe marka waa idin sii wadayaa igraa lahaada waxyar bayana mashquuleen fideoga waxamadeen waxyar kala go-ay haddaad u dhegeysan doontaan waa fahmi doontaan marka gaariye buuggiisa waa raadin doonaa tixdaase ma gocor baa aabbahaaya ma garabkaagaan rag joogin maxay fiintu u gadooday saas baa umalayn inay beriha ahaayeen maxaa gabawaray ciddayda adoon weli lagu gardaadin maxaa guulguulka keenay markaa si fiican uma xasuusto mar hore waan akhriyey laakiin ma xasuusto waan raadin doonaa wuu aad buu xanuun badan yahay qofka akhriya marka wuxuu ka matalayaa gabar la takooray ee ilmo yar dhashay ee ilmaha ma garanaysaa la balaanbalaysa ee cunug yarkaa la hadlaysa so waxaan muddo dheer bay soo jirtay ilaa haddana way jirtaa dhinac dhaqan bay ka tahay inay dadka takooraan dhinacna diin bay ka tahay laakiin waxaa xoog badan wadaadadu inay diimeeyaan runtii marka ilaahay qof dembiilaa mu uumin adduunkan ilmo yar dembi ma lahaan marka dadku galmaday sameeyeen ayagaa dembi galay laakiin ilmaha in la cinqaabo ma ahayn ilmaha xaq wuxuu u lahaa inuu helo waarid hooyiya aabe korniisho sida ilmaha kale uu xaq ugu leeyahay in la dhaho maahan haddii aadan marin weygii guurka ilmaha la takooraya taa caqligaas waxaan u arkaa caqli runtii caqli yaab le baan u arkaa oo mucjiso ah oo maxaa la dhahaa aan fahmi karayn baan u arkaa kuleyba aniga maan gaaban baan u arkaa maan guracan baan u arkaa cadaalad daraan u arkaa waxaan laga fiirsan baan u arkaa waxaan u arkaa maxaa la dhahaa wax kastoo fool xun baan runtii usoo qaadan karaa aragtida noocaas ah waayo aragti ilmo yar meel ku xiraysa ee geed ku xiraysa ee garab iyo gaashaan u diideysa ee waalid u diideysa ee magac u diideysa ee weligii qofkan ula noolaan doono runtii waa wax aad iyo aad u xanuun badan oo argagax ah oo naxdin ah marka dhammaantiin waan salaamayaa fideoga waxaa idiin soo raadin doonaa runtii maxaa la dhahaa bal tixdaa gaariya uu tirinayo waad mahadsantihiin walaalaha sharafta leh wejigiin kuguma aadin shamaca ii daaran ee quruxda badan baan kaamirada ku aadiyey wejiga waxbaa ii marmarsan maanta waa iska nasanayey sababtaas baa waxaa nacaya inaan wejiga wax marsan yihiin aan kaamirada hor fariisto laakiin waxaad daawanaysaanba waxaa weeye shamac qurux badan oo aan ii daarnaa iska waxay tahay barqadayba ay tahay kafeygaygaan iska cabayaa ilaahay baa mahad u sugnaatay eebaweynaa mahad iskale runtii qabowgii baa bilaabanaya marka shamacna quruxna wuu ku siinayaa markaad yara shiidatid xilliga qabowga ah carafna wuu leeyahay waa shamac carfoon kuleel yar iyo qandac iftiin yarna waa ka helaysaa so
beautiful fiicanta inaad shidataan markaa kafeera cabaysaan iyo habeenkii markaa caweynaysaa waan salaamayaa guul iyo gobonimo ay dirjeenayaan dhammaantiin waa dad iga aragti duwan baa fideogan dhageysan doonaa waayo muddo marka lagaaga dhigo nacaybka foolxumo marka lagaaga dhigo wax fiican nacaybkaasaa kula saxsanaanaya ilaahay qalbigiina mid naxariis iyo raxmad ay ku dheehan tahay hadinka dhigo gadaal u fiiriya bal qiyaas kaligaa adoo meehanaabayoon cidna lahayn dhinaca istaag dhinaca iska fiiri intaad dhihi lahayd nin baa yiri waxaa wax nin yiri ma aha wax maaragtay wax saxa ma aha ama santi